cabashadani odayaasha ayaa imaanaysa kadib markii ay shalay sheegeen madaxda ismaamulkani Mandera laga soo doortay in magaaladani Mandera uu ku sugan yahay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo ciidamada asaga taabacsan ay joogaan xadka Kenya ayagoona sheegay in ay joogaan qayb kamid ah magaalada tani Mandera odayaashana ayaa ka codsaday dawladda Kenya inay ciidamada halkaasi ka saarto way waxay yiraahdeen magaaladani waa mid nabad ah mana doonayno inaan cabsi ku noolaano hadaba oo kuwan qaar kamid ah odayaashani oo warbaahinta la hadlay waxaana kamid ahaa adaaladoodii sida tan magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Garaar odayaalka reer Mandera aan kamid ahay odayaalka reer Mandera anagaan meeshan isku imaanay hadalkayna waa cawasho waxaan ka cawanaynaa ciidamada dhaxdagan Soomaali ka imaaday oo Kenya dhaxdagan oo BB1 iyo kastanka dhaxdooda dagan oo heemada loo dhisay oo musqulo loo qoday oo musqulahaadna babaate laga dhisay oo ninka Cabdirashiid Janan leeraana asku dhacwata gaariga bulud baruufka ah oo xabada ay kareynin ayaan ka cawanaynaa ciidamadaas oo dawladda Kenya ay ogtahay annaga waxaan ka cawanaynaa annaga iyo Soomaali cod lagama dhaxeeyo walaalaan nahay odayaalka reer Soomaaliyeedna khayr Allah say way ka hadleen dagaal inaad dhicin dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa ciidamadaas inay naga qaada Jaanis uma hayna dadka inay dhex degan yihiin maatada inay dhex degan yihiin colaad horiya looga soo daali ciidamadaas waxaan rabnaa in laga qaado dawladda Kenya wasiirka amniga Matangi iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxaan ka bariyaynaa ciidamadaas si degdeg ah inay nooga qaado magacaygu waa Usmaan Rakiso maanta waxaan meeshaan soo imaanay danaha odayaasha Mandera waxaan ka cabanaynaa ciidamadan oo Soomaaliya soo dejisay wadanka Kenya oo dhinaca Mandera oo magaalada dhexdeedii ayaan ka cabanaynaa danahay odayaasha Mandera waxaan maartay aan arintaas aan ka cabanayna arimihii ay shalay ka hadleen madaxdeeni in anaga ku taageersanahay sidii maartay u cabdeen madaxdeena oo hogaaminaya Ali Roba shalay ku hadleen Nairobi arintan taageersanahay waxaan codsanaynaa dawladda Kenya ma aha in anaga gacanta inaan ku abuurno nabadgelyo ma aha dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa arintaas anaga waa darna reer Mandera waan ka xunnahay anaga reer Soomaaliya dad laba dal oo jiraan nahay wax noo dhaxay malaha nabad baan leenahay nabad naga la qaad ma rabno shacabkaan in la gubad ma rabno ilmaha in la gubad ma rabno barakac kama bixi karno waxaan codsanaynaa dawladda Kenya naga qaado dadkaas hageeyso meesha rabto Soomaaliya la geeyo inay nabadgelyo naga qaadin Mandera anagaas kala kama guuray meel cadeyn malaha arintaas naga la bixi ciidanka naga la bixi meesha dawladda Kenya hageeysan wadankooda Kismaayo meel dar hageysteen oo saddex ciidan dawladda Kenya degdeg dadkaas naga qaadno leenahay diidna la qaado waayo hadina la qaado waayna anna kulay Mandera waa tashanayna aniga waxaan Ibrahim Macallin Maxamed waxaan kamid ahay odayaalka Mandera dib aan yareen ayaan u haystaa meeshaan dibkaas oo mid aan la yaabsaneynay laba dib oo isdaba socota sidaan u deganeeyay oo nabad u qabnay macallimiinta iskuulka naga xabsaday ayadoon ogeyn sabab loo xabsaday haddana anagoo tii ka yaabsan ayaa waxaa noola keenay ciidamo dhulka la ka imaaday la siiyay la dejiyay dhulkii anaga lahaynay oo deganeynay oo Mandera dhexdeeda meel walba degan sabay u degeen iyo tala ay ku imaadeen aan ogeyn arintaas waxaa naga haysta dib aad u fara badan barakac baa ka dhicaya dhulkii maxaa yeelay laba ciidan oo macaarad isku oo nin wal madaxdiisa wata ayaa la isku keenay Mandera midna buulaha waa la keenay buulaha iyo Mandera kalma maarmaan kaas aawadeed waxaan ka codsanaynaa dawladda arrimaas inaan raali ku ahayn aan ogolaan karin oo ka bariyayna dawladda si degdeg in looga qaado si degdeg in ciidamadaas looga qaado ma aqaan anaga Kenya sabab ay ku maagtay inay wadankeedii oo nabad col ka dhigta laga xaabiyo macallimiinta idoo dib jirin wixii laga caawinayo macallimiinta loo xaabinay ay niman yar oo shabaab sheegto oo dhalinyaro badelka nimanka ay jacays ka dhihi lahayd ciidanka la soo duudiyo anaga la dhax keenay